magaalada Barawe ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed waxaa maanta si rasmi ah uga furmay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashada taasoo ay hirgelinayaan guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha qaranka. Munaasabadda furitaanka diiwaangelinta ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose, wasiirka amniga Koonfur Galbeed, xildhibaan Maxamed Xasan Murjaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, duqa caasimadda Barawe, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, saraakiisha ciidamada, gudoomiyaha ururka haweenka gobolka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka ah oo si weyn isaga xaadiriyay xarunta ay ka socoto diiwaangelinta. Mas'uuliyiinta ayaa goobta isugu soo baxay si ay u muujiyaan dhiirigelin iyo ka qaybgal toos ah, iyagoo sidoo kale isdiiwaangeliyay si ay tusaale wanaagsan ugu noqdaan shacabka deegaanka. Ugu horreyn waxaa hadal ka qaatay Yuusuf Cabdiqaadir Maxamed Baafo oo ka tirsan guddiga doorashooyinka madaxa bannaan, isagoo bulshada ku dhaqan magaalada Barawe u sharaxay muhiimadda isdiiwaangelinta codbixiyayaasha iyo u diyaargarowga doorashada. xildhibaankii deegaanka laga soo dooran jiray oo 195 lambarkiisu ahaa isaga noo furay. waxaan filayaa in maaragtay reer Barawe ay maaragtay isdiiwaangelin doonaan si wanaagsan ay u isdiiwaangelin doonaan maadaama gudoomiyihii gobolka, gudoomiyihii degmada, maaragtay wasiirkii amniga, xildhibaankii qaranka ee laga soo dooranaya Barawe ay markhaati ku yihiin, ay xaadir ka wada yihiin furitaankan maanta ay noo furantay. waxaan rabnaa waa maalin weyn, maalintaas weyn inay dadweynaha ka faa'iidaystaan reer Barawe. diiwaangelin codbixiyaha waa noo furan yahay. Gudoomiyaha degmada Barawe ahna duqa magaalada ayaa dhankiisa ka mahadceliyay in Barawe noqoto meelaha ugu horeeya oo lagu qabto diiwaangelinta codbixiyayaasha. dadkuna waxaan ugu baaqaynaa haddii ilaahay inay isdiiwaangeliyaan, codkoodana ku cilbaxaan, ay maaragtay doorashada hadday rabaan inay dad doortaan, ninkay rabaan si ay u doortaan waa inay isdiiwaangeliyaan. si fiican ayay u bilaabatay, sida hadda ay ku socotana si wanaagsan waaye. sidaasaan insha Allah rajaynayna haddii ilaahay inay noogu dhammaato. Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudane Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa bogaadiyay dadaalada guddiga doorashooyinka qaranka iyo sida shacabka reer Shabeellaha Hoose ay u muujiyeen diyaargarow iyo wacyigelin ku aadan ka qaybgalka doorashada. shacabka caasimadda Koonfur Galbeed u soo baxay maanta inay isdiiwaangeliyaan si ay mustaqbalkooda ay u go'aamiyaan, ay u doortaan cid allaale cidda ay rabaan inay ku matasho siyaasadda heer federaal iyo heer state. ayagana waa u mahadcelinayaa maanta soo banbaxay. waxaan rabaa halkan inaan dadka ku nool caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya ugu baaqo in ay isdiiwaangeliyaan. diiwaangelintu macnaheedana waxay ka dhigan tahay awooddii, sharciyaddii, dowladnimadii dhammaan in lagu soo celiyey shacabka gacantooda. haddii aadan isdiiwaangelinin waxna ma dooran kartid, mana laga dooran karo. dowladda Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo guud ahaan golaha wasiirada dowladda Koonfur Galbeed, guddiga madax bannaan ee doorashooyinka federaalka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan oo runtii hawshan inay soo gaarto caasimadda dowladda Koonfur Galbeed kaalin weyn ka qaatay. guddiga waxaan leeyahay marka ugu horeysa waa mahadsantihiin. Wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed iyo xildhibaan Murjaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ugu dambeyn madasha ka hadlay. magaaladii saddexaad oo lagu furay Koonfur Galbeed waa caasimadii Barawe. walilana dadka reer Koonfur Galbeed guud ahaan ku faa'iideysada wali isku tilmaamanay oo waan ognaa dadkan ka tiro badan iyo in dadka reer Koonfur Galbeed Soomaalida markii la fiiriyo dadkan ka tiro badan reer Koonfur Galbeed waqtigii wali la deeray marka tiradan intaydan un walka qaadalayn iyo la deeray walilana qof kasta oo reer Koonfur Galbeed habooy isdiiwaangelinta goobo leenshaani degmooyinka dhammaan warku furo doon. maanta aad ugu faraxsanahay degmada aan ka soo jeedo oo laga doortay xildhibaanka aan ka ahaa oo lagu soo doortay xildhibaankii oo ugu horeeyay aan imaado oo daafuro doorashada oo qaran oo qof codka ah dadweynaha reer Barawe. waxaan sheegaa insha Allah inay isdiiwaangeliyaan. isdiiwaangelintan muhiim waaye, qof walbo codkaaga iyo mataqaanaa qalankaaga ku ciwaadeyso. marka haddii la yiraahdo qofkaada rabtaa dooran doontaa insha Allah qof walba ha isdiiwaangeliyo. guddiga doorashooyinka aad u mahadsan yihiin. diiwaangelin si heer sare u socotaa, daahfurnaan fiican oo amniga, hay'adaha amniga dhammaantood iyo wasiirada iyo gobolkii iyo dhammaan soo joogaan saaxiibadeeda. waxa oo maanta booq la'aan ah bilaa shuruud oo qofna cid dhibaatayna ma jirto. odayaashii, habeenkii, dhalinyaradii kulligood maanta waa daahfurnay doorashadii. marka insha Allah waxaan sameynaynaa haddii la yiraahdo waad qofka ugu horeeya qaataan ahay
وأنا كفر حسنا هاي Aweys Muumin Xasan Aweys Okay warbaahinta qaranka Shabeellaha Hoose Baraawe.